si aan u furo kalfadhiga golaha wakiilada warbixin koobanna idinka siiyo xaaladda guud ee dalka aniga oo khudbadayda diiradda ku saaraya arrimaha amniga siyaasadda arrimaha bulshada horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxeelamiga ma rabo inaan idinku mashquuliyo macluumaad tiro badan oo ay dhici karto in aad badi ka warqabtaan waxaanse isku dayayaa inaan warbixin guud idinka siiyo meesha wax marayaan haddaan imaado arrimaha amniga mudanayaal iyo marweyn xaaladda ammaan ee dalka waa 100% marka laga reebo shaqaaqooyin ka dhacay miyiga hawdka ah ee guddoomiyuhu ka hadlayay ee aagga magacley iyo qoriile arrintaasna waxaa u kacay waxgarad isugu jira isimo ururada bulshada iyo dowladda Puntland oo juhdi badin geliyay sidii dadkaas walaalaha ah loo nabadayn lahaa waxaan rabaa si gaar inaan uga mahadnaqo isimada reer Jubbaland iyo madaxweynaha Jubbaland oo u soo diray wafdi inay ka qayb qaataan nabadaynta dadka walaalaha ah mahad gaar ayaan u celinaynaa meel dheer baan uga yimaado arrintaasi hadda meel fiican bay maraysaa waxaan ku rajo weynahay in xal waara oo waafiya laga gaaro maanta gobol kasta oo Puntland ah waxaa lagu seexday saaka nabad waxaana lagu soo toosay nabad wax shido iyo dhib ah oo ka jiraan ma jiraan waa wax ilaahay loogu mahadnaqo in maanta meesha doonta Puntland aad mari karto adiga oo wax walwal ah ka qabin inay dhib soo gaarto naftaada maalkaaga iyo sharaftaada waxaa si xawliya u socda isbeddelkii lagu sameeyay ciidamada booliska Puntland waxaan jimcihii ugu soo xiray tababar ciidamo gaaray 500 oo askari dugsiga tababarka ee Janaal Batukade ee degmada Xarfo waxaa iyana tababar ku soo dhameystay ciidamo 700 kor u dhaafaya dugsiga tababarka ee Carmo ciidankaasi waxay iyagoo agabkoodii u dhan yahay ka hawlgeli doonaan gobollada kala duwan ee Puntland waxaa mahad gaar u naqayaa taliyaha ciidanka booliska ee cusub oo intii yareyd oo uu shaqaynayay isbeddel la taaban karo ku sameeyay ciidanka booliska waxaa maanta lagu fahmi karaa in ciidanka boolisku uu yahay mid tababaran oo tira kooban kana hufan caglaysi iyo musuqmaasuq ciidamada daraawiishta ee Puntland ay taageerayaan ciidamada kale ee qalabka sida waxay guulo wax ku ool ah ka soo hooyeen cadawga shabaab ee ku dhulaaleysanayay buraleyda galgala dagaalkii aan kula jirnay cadawgaasi wuxuu marayaa heer gabagaba ah waxaan rajaynayaa in waqti aan dheerayn la soo afmeero waxaan rajaynaynaa in dadkii ka barakacay galgala iyo nawaaxigeeda in ay si nabadgelyo ah guryahoodii ugu soo laabtaan inkastoo cadowgani yahay mid leh mabaadi' guracan oo qorsho fog leh mar walbana gacan ka helayay xoogo kale oo dan islaam iyo dan Soomaaliyeed midna aan maanka ku hayn haddana Puntland iyo ciidamadeedu way ka feejigan yihiin khatar kasta oo ku soo foole ama ha ahaato mid dhow ama ha ahaato mid dheer arrimaha bulshada waxaan juhdi badan gelinay in kor loo qaado lana kordhiyo oo la gaarsiiyo adeega arrimaha bulshada gaar ahaan deegaamada ka fog laamiga sidii ballantu ahayd mataal waxaan deeq waxbarasho u dirnay
qaar kalena u diyaarinay arday kor u dhaafaysa 150 annagoo qoonda gaara u samaynay dadka la haybsooco iyo ardayda wax ka barata deegaamada ka fog laamiga sababtu waxaa weeye ardayga aqoontiisa iyo buundadiisu waxay ku xiran tahay resource-ka uu helo saas daraaddeed ayay waajib nagu tahay in dib loo eego qaabka loo bixiyo iskoolashyada amase deeqaha waxbarasho fiiro gaarana loo yeesho dadka ka fog laamiyada ee aan helinin resource ku filan dhanka waxbarashada waxaan dhowaan heshiis la galnay dowladda Jarmalka iyo hay-adda UNICEF in ay lacag kor u dhaafaysa dhowr iyo 20 milyan oo euro la geliyo caafimaadka iyadoo wax badan ka bedeli doonta adeega caafimaadka ee Puntland haddii sida uu yahay mashruucan u hirgalo waxaan rajaynaynaa in uu wax badan ka bedeli doono tayada caafimaad ee Puntland waxbarashada iyo caafimaadku waa aasaaska nolosha qofka muwaadinka ah waana adeeg uu xaq u leeyahay duruufta dhaqaale noo saamixi mayso in aan geed walba dadka ugu geyno waxbarasho iyo caafimaad lacag la'aan ah laakiin waa inaan helaa ama aan dhignaa aasaaskii dhanka biyaha dowladdu waxay ka qabatay wax badan arrimaha biyaha waxaan annagoo la kaashanaynaa hay-adda Baasaweyn iyo bangiga islaamka iyo hay-adda SSF Somali Stability Fund ka qodaynaa ceelal kor u dhaafaya 30 ceel inta u dhaxaysa min Tawfiiq ilaa Damala Xagare iyo min Xiriiro ilaa Xero Jaalle waxaan noo qorshaysan ajadaha ku jira dowladda waqtigeedana markii la gaaro 2030 marka la gaaro in Puntland ay gaarto isku filaansho dhanka biyaha lama aqbali karo in qarniga 21aad ay dad reer Puntland ugu dhintaan oon iyo haraad inta aan joogno Puntland waxaan isku dayaynaa in aanu ka qabtirno jid iyo biyo waxaan aaminsanahay in haddii culayska la saaro jid iyo biyo in nolosha dadka Puntland wax badan iska bedeli doona dhanka kaabayaasha dhaqaalaha Puntland waxay maalinta ka dambaysa horumar la taaban karo ka gaaraysaa dhanka kaabayaasha dhaqaalaha ama infrastructure-ka dowladdu waxay mar hore go'aansatay in ilaa wax badan laga qabto kaabayaasha dhaqaalaha Puntland inaanan ka baxayn xaaladda adag ee ina ku xeeran waa muhiim si loo helo maalgashi dabadeed koboc dhaqaale iyo horumar dhanka wax soo saarka ah in aan wax ka bedelo kaabayaasha dhaqaalaha waxaa bisha December dhamaanaya dhismihii aeroboortka Boosaaso oo aan rajaynayo inay dhawaan yimaadaan duulimaadyo caalami ah waxay Puntland iyo dadkeedu ka bixi doonaan go'doonkii iyo silcii ka haystay dhanka socdaalka dhismihii aeroboortka Garowe wuxuu bilaabanayaa bisha November waxaan rajaynaynaa inuu dhammaado bisha October ee sanadka soo socda garoonkani wuxuu noo leeyahay muhiimad gaar ah taasoo ah inuu wax weyn ka bedeli doono wejiga caasimadda Puntland dal iyo dowlad walba waxaa laga cabiraa ama lagu qiimeeyaa muuqaalka meesha aad ka soo degtid caasimadda Puntland ee Garowe qurux ma yeelanayso haddii muraayadii laga soo galayay ay foolxun tahay balaarinta dekedda Boosaaso balaarinta dekeddu meel fiican ayay maraysaa waxaan filaynaa in surveillanskii yimaadaan bisha dhammaadkeeda qalabkii kalena uu dhowaan soo gaaro wuxuu maalgashadahan inoo sheegay oon kula heshiinay inuu iyadana dekedda Garacad dhismaheeda wax badan ka qaban doono si ganacsiga Ethiopia iyo Puntland wax isaga bedelaan wadada Garowe iyo Gaalkacyo socdaalkaygu u dambeeyay ee aan ku tagay Nairobi waxay EU iyo GIC noo sheegeen in hawsha wadadu si xawli ah u bilaaban doonto
bisha January ee sanadka 2016 wadadan oo ah halbowlaha ganacsiga Puntland wuxuu dhismaheeda wax weyn ka bedeli doonaa isu socodka gaadiidka iyo dadka Puntland wadada Ceel Gaabo dhaqaale ururinteedii waxay maraysaa meel fiican waxaan rajaynaynaa in dhaqaalahaasi uu loo soo iibin doono qalab casri ah oo wadadaasi iyo wadooyin kaleba aan ku dhisan karno sida ugu wanaagsan uguna jaban ee aan wadooyinkeena ku dhisan karnaahay waa in aan qalab wax ku ool ah aanu helno mashruucaanina wax badan ayuu arrintaas ka bedeli doonaa hawlaha wada hagaajintu waxay ka socdaan meelo kale ee dalka ah oo mar raba inaan hadda tafaasiil dheer ka bixiyo laakiin wadooyin kale dalka qaar ahaan meelaha fogfog ayaa iyana wax badan ay ka socdaan hawlihii aan ka wadnay Gaalkacyo sida aad la socotaan waxaan muddo 2 bilood ka badan ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug dowladdu waxay halkaasi ka qabatay hawlo isugu jira xasilinta amniga wax ka beddelka cadaaladda soo celinta bilicda magaalada iyo dib u habaynta canshuuraha iyo dhaqaalaha gobolka iyo soo celintii hantida dowladda waxa arrintaas gacan weyn ka qaatay xildhibaanada Puntland golaha xukuumadda maamulka gobolka iyo degmada iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada hawshaasi waxay ahayd hawl raagtay way ahayd in mar hore la qabto gobolkani wuxuu ahaa gobol dayacan kula jira xaalad gooni ah una baahan in si dhow looga warqabo in magaalooyinka Puntland lagu shaqeeyo lagana shaqeeyo waxay ka mid tahay siyaasadda cusub ee Puntland meelo kale oo dalka ka mid ah ayaa sidoo kale la tegi doonaa lagana shaqayn doonaa waxaan ka xumahay in dad mas'uuliyiin ku sheega waan xilkas ahayn ay facebookyada fasilaan qadan ka bixiyaan waase haddii aan u joojino fikirkooda guracan ee aad ka hooseeya arrimaha Soomaaliya waxay maraysaa marxalad kala guur ah waxayna u baahan tahay in mar walba lala socdo hormuudna laga noqdo isbeddelka dhici doona masiirka Soomaaliya Puntland cidna magan uguma aha cid u daba fariisan mayno wixii xaq ahna sheegideeda cidna uga turi mayno waxaan dhawaan 2 shir kaga qayb galnay magaalada Muqdisho waxaan geynay fikirkayaga ku saabsan isbeddelka la filayo inuu Soomaaliya ka dhaco sanadka 2016 waxaan rabnaa inay meeshaas ka soo baxaan wax Soomaali dan u ah xaqna ah Puntland dheeraad dooni mayso laakiin xuquuqdeeda si waafi ah oo aan leexleexad lahayn ayay u raadsanaysaa gabagabadii waxaan idin rajaynayaa inaad ka doodaan ajandayaal dalka iyo dadka anfacaya una adeegaya horumarka iyo masiirka Puntland kalfadhiga 36aad ee golaha wakiilada Puntland waa u furan yahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi